soo dhawaada odaga laamiga ku iibinayo rootiga iyo buskudka waxa uu maanayo odagan iyo wiilkiisa aad u fiirinayo rootiga iyo buskudka meesha lagu iibinayo laakiin abiis wuxuu leeyahay aabba aniga wax lacag ma hayo mar kale ku gado doonayo soo bax meesha ka tagayna isla markii ninkii rootilaha ayaa soo fiirinayo wuxuu ku qiiroonaya cunug yar baahida heeso soo laabo ayuu leeyahay cunug yar abiis ka soo fasax qaadanaya wuxuu u soo laabanaya rootilaha hal bac oo rooti ayuu siinaa cunuga laakiin cunuga aad ayuu ugu farxaya awaalka ogal ninkan rootilaha abiisna qalbiga ayuu ka salaamaya wuxuu ka tagaya meesha dhowr sano kabacdi waxa arkaya ninkii rootilaha ahay oo fadhiya maqaayad aad u weyn waxa ka shaqeynaya cunug yar oo hadda ka rootiga siiyay badar ayuu u keenaya raashin odaga oo dalbaday isla markiina sidii maalintii oo dhahay oo kale ayuu dhahaya markiilaha shirkadda meesha fadhiya waxa arkaa ninkaas oo dhahay waxaan soo xasuusanaa kiyada ko rootiga cunugiisa sii jiray wuxuuna ogaanaa inuu asiga yahay cunugii qofka rootiga siiyay isla markiina wuxuu soo bixinaya cabitaan aad u qaali ah oo ka soo bixinaya qaybta cabitaanada wuxuuna u keenaya isla markaa asagoo la hadlin ninkii rootilahan aad u yaaban yahay asagoo la hadlin wuxuu u tagaa midkii biisa sameeyo wuxuuna ka soo qaadaa biisa aad u weyn wuxuu u keenaa wuxuuna la fadhiisaa oo la sheekaysan laakiin odaga uu la yaaban yahay ninkan asagoo waxba dalban u keenayo alaabtan tirada wuxuu leeyahay aniga waxa ma dalbanin mana iska bixin karay maxaa u keentay ninka wuxuu leeyahay adiga ayaa iskala waxaan dhan waa inaa cuntaa wuxuuna leeyahay abaal hadda kahor ii gashay ma xasuustaa adigoo sandhiis ayaa ku arkay abaal hadda kahor ii gashay oo cunugayga maraad siisay rooti aad u badan ninka wuxuu xasuusanaa xasuusta hadda kahor uu galay abaalkii cunugii yaraa wuxuuna leeyahay waa runtaada abaalkii galaa abaal loo gudaa markay Soomaalidu leedahay waa runtaada waxaad ii gudaa abaalka hadda kahor ku galay aad iyo aad ayuu ugu mahad celinayaa wuxuuna u sheegay in dhowr hore kahor ugu dambeysay ganacsigiisa oo ka burburay oo haddana meelaha iska dawrsado waxba oo gacanta ku haynin wuxuuna leeyahay mar walba u baahato waa ma ka dhaama khaydan wax walba u baahantaana waa ka cunaysaa aniga ayaan iskala meesha kugu soo dhaweynaya aad ayuu ugu farxayaa ficilka uu sameeyay odaga wuxuuna u mahad celinayaa ninkii meesha iska lahay laabta ayay isgelinaya halkan ay ku dhamaanaysaa qaybteena